Assalaamu calaykum. Maanta ciwaankeena waxa uu ku saabsan yahay qanjirka thyroid. Waa maxay thyroid? Halkuusu ku yaalaa muxuuse qabtaa? Haddii aad doonaysid ka bogasho wacan. Ugu horeyn, waa maxay qanjirka thyroid ama thyroid? Qanjirka thyroid waa xubin u eg balanbaalista oona ku taal xagga hore ee qoorta, waxayna wax yar ka hooseysaa Adam's apple. Adam's apple waxaa la lahaa waa bahalkan soo dheer oo inta badan ragga ay leeyihiin ayaa loo yaqaanaa. Waxay door muhiim ah ka ciyaartaa nidaaminta hababka kala duwan ee dheefshiidka kiimikeed ee jirka iyada oo loo marayo soo saarista hormoonada thyroidka. Halkuu ku yaalaa qanjirka thyroid ama thyroid? Thyroidku waxa uu ku yaalaa xagga hore ee luqunta ama qoorta, wuxuuna ka hooseeyaa larynx-ka oo ah sanduuqa codka, wuxuuna ku duuban yahay ama uu ku xiran yahay hawo-mareenka trachea oo ah tubada dabaysha. Caadi ahaan, thyroidku waxa uu ka kooban yahay laba loob, waxaana isku xiro isthmuska. Shakhsiyaadka qaarkood waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin pyramidal lobe kaasoo kasoo dhexbaxaya isthmuska. Thyroidka qaab ahaan wuxuu u egyahay sida balanbaalista, wuxuuna leeyahay laba garbood. Sidoo kale dhiigga waxa uu ka helaa xididada hodanka ku ah dhiigga, kuwaas oo ka yimaado halbowlayaasha carotid iyo halbowlaha subclavian. Qanjirka thyroidka waxa uu soo saaraa laba hormoon oo aasaasi ah oo kala ah thyroxine oo loo yaqaano T4 iyo triiodothyronine oo loo yaqaano T3. Hormoonadani waxaa laga soo saarayaa ama laga sameeyaa amino acid tyrosine iyo iodine, taas oo laga helayo ama laga helo cuntada ama cusbada iodized-ka ah. T4 waa hormoonka ugu muhiimsan oo uu soo daayo qanjirka thyroidka, waxaana loo bedelaa T3 firfircoon iyada oo laga saarayo hal atom oo ah iodized-ka. T4-ka ayaa waxaa laga saarayaa hal atom oo iodine ah, sidaasina wuxuu ku noqonayaa T3. Hormoonadani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan nidaaminta dheefshiidka jirka, waxayna saameeyaan hababka sida koritaanka, horumarka iyo tamarta. Soo saarista iyo sii deynta hormoonada thyroidka si adag ayaa loo habeeyaa iyada oo jawaab celintiisa ay ku lug leeyihiin dhowr qanjir. Hormoonka ugu horeeya wuxuu yahay hypothalamus, wuxuu soo saaraa thyrotropin releasing hormone kaas oo loo soo gaabiyo TRH, kaas oo kicinaya qanjirka pituitary-ga. Qanjirka pituitary-ga isagana wuxuu soo deynayaa thyroid stimulating hormone oo loo soo gaabiyo TSH, kaas oo isagana ka jawaab celinayo TRH-ka oo soo daayay hypothalamus. Qanjirka thyroid glandiga ama thyroidka wuxuu ugu jawaab celinayaa TSH-ka isaga oo isku dabaridayo ama sameynayo kuna sii deynayo T4 iyo T3-ga gudaha dhiigga. Wareegtadani jawaab celinta waxay hubisaa in heerarka hormoonka thyroidka lagu hayo ilaa xad si loo taageero howlaha jirka ugu fiican. Howlaha hormoonada thyroidka. Hormoonada thyroidku waxay saameeyaan jirka oo dhan. Ugu horeyn, waxay xakameeyaan heerka ay unugyada u bedelaan nafaqooyinka tamar, taas oo saameysa guud ahaan heerarka dheefshiidka kiimikaad. Sidoo kale, hormoonada thyroidku waxay caawiyaan habeynta heerkulka jirka iyaga oo saameynayo wax soo saarka kuleylka. Sidoo kale waxay saameeyaan garaaca wadnaha iyo xoogga wadnaha. Waxay kaloo saameeyaan xoogga murqaha iyo isku dabaridkooda. Hormoonada thyroidka ayaa muhiim u ah korriinka iyo horumarinta gaar ahaan carruurta iyo dhalinyarada. Muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ka eegayaa. Waxaa inoo balana muuqaalada xiga hadduu Alla idmo. Kheyr badan.